السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawareysaan. Warbixinada barnaamijkan idinku wayno waxa kamid ah ugu dambeyn Iran oo u gudbisay Pakistan goordhawey. Fakarkeeda wada hadalka ku saabsan ee uu Mareykanku muddo sugay. Laakiin la taliyaha Ayatullaahiga ayaa war cajiib ah ka soo daba tuuray. haddaba sheeko la yaab leh sida wax la isu dhaafsaday iyo warka gadaal ka yimid iyo wararkii ugu dambeeyay barnaamijkan idinku haya. dhanka kale sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay Ingiriiska iyo Faransiiska maraakiibtan ay keenayaan Hormuz ee ay leeyihiin maraakiibtan ku caawinayna annaga iyo ayaga il iyo aragtiya naga dhaxayso nagta ka saarayna. sheekadaasoo iyana waan idin hayaa. waxaa soo kale aan idiin soo gudbin doonaa Shiinaha oo isna hunguri uga jiro khaliijka inuu soo dago kadib markaa Mareykanku halkaa ka baxo. Shiinuhu wuxuu aaminsan yahay Mareykan inay halkaa uga dhamaatay oo Iran ka cayrsatay uu sii socdo. ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa Pakistan oo sheegtay inay Iran ka gudoontay jawaabtii hindisihii Mareykanka kadibna jawaabta ay u gudbisay Mareykanka. Pakistan waxay leedahay annagu sideedaba dhexdhexaadana warqadda naloo keeno ma furno xataa ma fiirino iyadoo sideeda America waa taas American hindisa keenaya Iran u socda annagoon furin waa kaas inaan wada hadalnaan ku heshiinay Islamabad kaalay intaas way dheen shaqadeen. haddaba maalmahan oo dhan Mareykanku waxay u foolanayeen oo naftu kays oo Iran ma ka soo jawaabto ilaa markii dambe la yiri Iran waxay la gaadeen dhikan safarkiisa Shiinaha laakiin safarkii ku dheeraaday baashi sidii loo soo safarka 4-15 ma dhawa ninkan cabaadka ka dhabaaday maalin walba 4 jeer u sheegaya wuxuu leeyahay Iran ka sugayda Iran aawo Pakistaniintii uu la hadlay wuxuu leeyahay aawo hadda marka waa la dhiibaaliyay laakiin jawaabta ay keentay Iran inay wax walba ogolaatay inay miiska fariisanayso iyo wixii oo dhan wali tafaasiil laga mahay. Pakistan waxay leedahay anagu waxba ma wana fiirin waa qabanay waa dhiibnay Mareykan haduu dhiibnay Mareykanka markaas ka soo jawaabi doona waxyaabo keentay kana keentay asaga soo dhihi doona tiri. haddaba marka aan tuso marka hore warbixinta sheekadan ugu dambaysa laga qoray waxa leeyahay Iran waxa ay u dhiibtay jawaabtii laga sugayay hindisihii Washington si marka dagaalka loo dhameeyo. marka Iran waxay soo dhiibtay hindisihii Mareykanka loo gudbinayaa kadibna dagaalka si loo dhameeyo. وجد مركب باكستان لو ديبي الوسيط باكستاني لهذا dhexdhexaadiyaha باكستان loo dhiiba asaguna marka ayadu sideedu dhiibay laakiin marka waryara soo baxay meeshan aad cajiib waa la taliyaha Ayatullaahiga waa nin awood ku leh marka loo eego title-ka ama jagada uu haysto. la taliyaha Ayatullaahiga waa nin sare wasiirada iyo waxaan dhan waa ka sareeya ninkaas war ka soo daba tuuray warqadii la dhiibay. macnaha warqadda waxa ku qoran lama ogeyn warbaahintu ma ogaa karin. Pakistan waxay tiri anagu sideeda iyadoo Mareykan u dhiibnay Mareykanna wali kama soo jawaabin. warqadda marka waru ka soo daba tuuray warka daba tuura marka warkaas dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin warkaas waran nooga baxay warqadaas waxa ku qoran oo ninkan sharaxaya inuusan Mareykanku wuxuu yiri inuusan Mareykanku dib ugu soo noqonayn ee gobolkan bariga dhexe uu si joogay waa ka guura meesha ninkan. dagaalkii labaad markii laga soo laabtay kadib cidda kaliya Mareykanka ka adkaatay waa anagu uu leeyahay waa Ayatullaahiga mustashaarkiisa la taliyiis wuxuu leeyahay Mareykan waa uga dhamaatay halkan waa ka duuduubana waa socdaa. macnaha nimankan waxa ay warqadda ku qoreen inkastoo aan la ogeyn laakiin ninkan hadalkiisa Mareykan waxaas waa soo diidi doona hadduu aqbalo meesha waa ka socdaa uu leeyahay ninkan
haddaba markaan idin tuso aljaziira ayaa warbixin cajiiba ka qortay waxaa ciwaan uga dhigtay hasiimada ama guuldarrada washington la taliyaha aayatullaahiga ayaa wuxuu leeyahay waxaanu filaynaa maraykanka inaanu mar dambe joogi doonin gobolkan bilaha soo socda wixiise waa ka guran doonaa washington waxa uu sheegay inay markaa kala kulantay iiraan iska caabin aanay filayn waxaana ay iiraanu qabsatay oo ay la wareegtay gacantana ku dhigtay marinbiyoodka hormus waxaa meesha ka baxay imbraadoriyadii maraykanka uu ku haystay gobolkaas waxaana hadda imbraadoriyadaasi ama boqortooyadaasi ay bilowday inay dhacdo oo ay hoos u dhacdo annagu waxaan nahay dowlatul waxiida u dhahay dowladda keliya ee markaa maraykanka ka adkaatay dagaalkii labaad ee adduunka sidaa daraaddeed maraykanka uma ogolaan doono inuu sii wado siyaasadihiisii hore ee galbeedka aasiya ninkan marka warkiisi waa cadyahay warkii marka warqadda ku qornaa inuusan rajo badan lahaynay dadka qaar leeyihiin oo waxay leeyihin ninkan warkan uu ka daba tuuraayo warkaasu nabadaa rabnaa iyo warkaan isma keenaaya leeyihin marka sheekadaasu halkaasay iyaduna ka qasan tahay marka maxaa kaloo soo baxay war kaloo cajiiba sida yimid oo la leeyahay shiinuhu wuxuuba quudaraynayaa inuu soo dego carabtan la soo dego shidaalkan iyo waxa kan iyo markiisa iska dhuuqo carabtan marba qofaa iska imaanaya iska degaayo iska dhuuqaayo meeshaan waa la yaab wuxuu leeyahay aniga waxaan noqon doonaa ninaa ku kalsoonaan doontaan idin ilaalin doonaa marka waa kaas iiraanna hadda maxay lahayd xuduurkaaga ama joogitaankaaga gobolkan bilaha soo socda waa sii dhammaana waa ka guure baashaan duqa marka markuu guuro shiineesna iiraan isku xereeyi anaa soo degaayu leeyahay carabtii u la sii hadlaha shiinuhuna wuxuu leeyahay carabay aniga waxaan ahay qofaa ku kalsoon tihiin ninkii meeshaan soo degay waxaa idinka dhuuqay lacagta idinka qaad waa idin waaridiyeena idin yidhi wax uu idin waaridiyey maaragtay jugtaa laydinka geliyay maalin walbana lacaguu idinka daldalan jiray anaa idin waaridiyeynaya saldhigyaan ka samaysana halkaa cid idin soo hunguriyeynaysa male yaa isgaareen dheer iiraanaa jugta ka gelis marka aniga soo dhaweey u dhi waxaa moodaa islaan garooba oo la shukaasanaya moodaa carabti waa wareereen carabti shiinaaskii hadda xodxodana meelaanu ka maraa haddaba markaan idin tuso warbixin kooban oo aljaziira ciwaan uga dhigtay shiinuhu waxay leeyihiin carabay annaga ayaa idiin noqonayna bedel wanaagsan oo aad ku kalsoontiin bedel wanaagsan aa idiin noqonayna carabay la socdou leh marka sheekadaasu sheeko caadiya maahan warkaasu marka waxa uu ka mid yahay wararka soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waay qodobkaa isaguna halkaasa kaga gudbaynaa warka kale cajiibkaa shalay iyo daraadii waxaanu ka hadlaynay markab faransiisa hormusaan tagaa u yidhi markab ingiriisa hormusaan tagaa u yidhi maxaa ka doonaysiin waxaan ka doonaynaa maraakiibta meesha maraysaa saacidaynaa maraykanna annaga kuma xirnin iiraanna waa la hadleen waa taa marka shalay idin lahaa ogaada shalay waxaan idinku idhi haddaa xusuusataan barnaamijkii xalaan u malaynayaa ama idinku idhi miinada maasaa gashtay ingiriis meesha maraakiibtan maasaa meesha ku ceshaday iiraan hadda war ma soo saarina idin laakiin waray soo saari doontaa haddaba marka sida warbixinta aljaziira ay qortay mas-uul sare oo ka tirsan iiraan waxa uu sheegay inay iska caabin doonaan oo ay la diriri doonaan joogitaanka maraakiibta dagaal ee faransiiska iyo britain ay soo gaareen meel ku dhow hormus ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa warkan soo saaray waxaana uu sheegay in halkaa la keeno maraakiib dagaal oo marinbiyoodka hormus iyadoo lagu marmarsiyoonayo in la ilaalinayo habsami u socodka maraakiibta halkaas waxa uu sheegay inaysan waxbaba ka bedeli doonin waxaana uu yidhi joogitaanka maraakiibta dagaal ee faransiiska iyo britain ee marinbiyoodka hormus waxay keeni doontaa jawaab deg deg ah oo lala yaabo oo iiraan ay ka bixin doonto
waraa meesha isaga tagay dheen badaan furaynaadiina maahan meeshaan waxaan furaynaadiina maahan meeshaa isaga tagay dheen wallay ka teedheen nagta sida ladinkaga bilaabo halkan madaxa ay ku socodsiinaya meeshaan amerikaana mari waaye markaas waxaa leedin waxbaa marsineen marka sheekadaasu iyaduna wararkii soo kordha ayay ka mid tahay haddaba qaybtan maxaa soo dhacay netanyahu ayaa war soo saaray wuxuu leeyahay dagaalkii iiraan weli ma dhammaanin dagaalkii iiraan weli ma dhammaanin haye ilaa meel la saaro uraniumka nuclearka noqon kara iyo alaabtan iyo waxa ka nuclearka iyo wax dhammaaday maluule marka waa usii sheegaya markuu maqlay waayo warkan markuu soo saarayo jawaabtii iiraan loo dhiibay maraykanka marka wuxuu leeyahay la socda dagaal ma dhammaan iiraan inta ay marmarsiyo u raadinayso nuclearka iyo uraniumka si aysan ay leedahay wax nabada ma jiraan marka wuxuu kasii hordhacayaa hadalkii Trump uu mar dhow soo saari lahaa Trump asaga waxa dhan isku ah marka mar dhow markii hindisaha loo akhriyo asaaba soo jawaabaya okay way ama okay maanu soo dhihi doonaa marka ninkanu marka wuxuu leeyahay dagaal marka ma dhabaan marka waa arki doonaa wararkaas waxay ahaayeen wararkii soo kordhay tan intaynu kala maqneen asxaabay meel kastoo aad joogtaan like gareeya oo share gareeya barnaamijka inta aan mar kale barnaamij kale kulmayno haddii alla idmo